السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan asxaabta qiimaha badan ee ku xiran janalka Aamin Technology isku soo noqdo wanaagsan. insha allahu tacaala maanta waxaynu qaadan doonaa cashirkii shanaad ee aynu ku baranaynay web designing-ka khaasatan HTML and CSS. insha allahu maanta waxaynu isla daraasay doonaa hadduu alla idmo coverkan. ugu horeyn waxaynu ku bilaabi doonaa div element. div waxay u taagan tahay division element. division elementigu waxa waa in sida website-kayna aynu u kala qaybi lahaynay qayb as block, sida website-kayna u kala qaybi lahaynay block qayb waxaan u suurtagelinaynaa website-kayna u kala qaybino qayb div element. insha Allah waan isla daraasay doonaa isla socod wanaagsan. sidoo kale waxaynu qaadan doonaa structure element, qaab dhismeedka uu yeelo doono website kasta, qaab dhismeedka uu leeyahay aynu isla daraasay doonaa insha Allah. sidoo kale waxaynu isla daraasay doonaa anchor element, sida loogu soo darsado anchor waxaa kaloo la dhahaa link, sida loogu soo darsado link ayaanu baran doonaa website-kayna. sidoo kale waxaynu baran doonaa more hyperlink, sida linkiyo badan loogu soo darsado website-kayna insha Allah. hadda sidoo kale waxaynu isla daraasay doonaa sida linkigayna aynu ugu furi lahaynay new browser cusub, si aan ugu furi lahaynay linkigayna ayaynu isla daraasay doonaa insha Allah. sidoo kale waxaynu ku baran doonaa cashirkan sida email loogu soo darsado ama gmail ama email loogu soo darsado website-kana ayaynu isla daraasay doonaa isla socod wanaagsan. hadda waxaynu dul istaagi doonaa hadduu alla idmo div element. waxaynu soo kacsan doonaa Visual Studio Code dhirta intaan hore ayaan usoo qaadanay. cashirkan ayaan sii wadi doonaa insha Allah. waxaynu saari doonaa comment div element. hore waxaan usoo dhahnay marka aad doonaysid inuu comment kuu noqdo, ugu horeyn hayla saad kadib control leh kadib slash leh slash backward slash ya Allah calaamadaas taas ayaa ka dooranaysaa. division waxaa loo soo gaabiyaa dhahnay div ayaanu qori doonaa, kadib qoraalka u baahan ayaan dhex geli doonaa. hadda paragraph ayaan dhex geli doonaa hadduu alla idmo, kadib loora qoraal kuubi ayaan soo qaadan doonaa. div element saan ayaan ku sameynay. maxay ii suurta gelinaysaa divisionka, maxay faa'iido leedahay? faa'iidadu waxa waa inaan maamuli karno qayb ka mid ah code-kayna anagoo isticmaali doono div oo loo soo gaabiyo division element. hodhow marka aynu gaarno insha Allah CSS-ka, divka wuxuu noo suurta geli doonaa inaan intaan kaliya maamulno, intaan division ku dhex jiro kaliya inaan farta ka bedeli karno, cabirkiisa weyneyn karno, dhexda gey karno, si kasta yeeli karno. waxaan noo suurta gelinayaa waa division element oo loo soo gaabiyo div. sidoo kale waxaynu isla daraasay doonaa structural element, structure-ka oo yeelan doono website kasto waxa uu ka koobnaan doonaan intaan. ugu horeyn wuxuu yeelan doonaa website-ka header, waxa la dhahaa header, qaybta ugu sareysa ee website-ka waxaa la dhahaa header oo magacay ka soo muuqan doono. sidoo kale website-ka header-ka waxaa ku xigi doono nav waxaa loo soo gaabiyay navigation. navigation waxa waa home, photos, video, about us, contact. intaasoo dhan waxaa la isku dhahaa inta kasoo muuqan doono website-ka hodhow navigation yaa la dhahaa. navigationkaas waxaa kasii hoos mari doono main, waxaa ubuucda dhexdan main ayaa la dhahaa. sidoo kale waxaa dhihi kartaa body, ubuucdan dhexda oo dhan oo naafka ka horeysa ilaa footerka waxaa loo yaqaanaa main ama body ayaa dhihi kartaa. sidoo kale qaybta ugu hooseyso ee kasoo muuqan doonto meesha location-kaada iyo waxa ahay kambasyadaada hadda jaamacadda website-keeda dhisi. sidoo kale waxaa loo yaqaanaa footer. qaybta ugu hooseysa website-ka waxaa la dhahaa footer, qaybta ugu koreysa waxaa la dhahaa magacay kasoo muuqan doona header, qaybta dhexda navigation, home iyo contact, about iyo ay kasoo muuqan doonto kuwaas waxaa la isku dhahaa navigation. qaybtan dhexda ugu weyn website-ka waxaa la dhahaa main. sidoo kale waxaad dhihi kartaa body. aynu tagna hadda website-ka aan hore soo baraatgareyn. website-kan qaybtaas ugu koreyso hadda normal ahaan hadda wuxuu noo leeyahay kaliya
footer ama maxay body ama wuxuu noo leeyahay body sidoo kale waxa loo yaqaan main qaybtaas ugu koreyso navigationadii malahan waa gaari doonaa insha Allah haddii la idmo qaybtaas kore title soo muuqdo head kana waxa la header qaybtan ugu hooseysana footer hadda noo malahan qaybta ugu hooseysa footer ka soo muuqdo iyadana waxa la footer waan isla daraasay doonaa gaari doonaa insha Allah sidee website-ka loogu soo darsadaa link intaan hore ayaan isku soo daraasaynay website-kaada marka aad link ku soo darsay ama adoo bis dhibin waxa dhihi kartaa sida hore u soo sheegnaba ayaa dooranaysaa kadib asaa ku diyaarinaya ninka gelina refresh inuu ahaa doonaa sida uu tigi doonaa waxa soo muuqan lahaa intuu geli doonaa home ayaan ka dhigaynaa kadib waan save gareynaynaa waxaan isla soo kici doonaa Chrome ka ayaan isla soo kici doonaa kadib refresh ayaan dhigi doonaa sorry kaas maahan waa kan mid kana save gareysan kan practical waa refresh ayaan dhahaynaa kadib waxaa la rabaa inuu soo muuqdo home kaas oo ah link waa kana home ki link waa inuu link yeeso ku ogaan marka kaasal dul dhigaysid wuxuu noqon doonaa gacan ayuu noqon doonaa hadda kaasal kada meel kale geeyno qoraal kale waxa doonaa kaasalka caadiga laakiin marka dul deyno gacan ayuu doonaa waa kaasa buluga soo marka website-kan u quraxnaado intaan waxay soo dhisaynay waxa yeeli doona navigation kor ayaan ka dhigi doonaa home-kan iyo waxa soo dhan waxaan tageynaa qaybta kore ee uu koreyso video ku xigto navigation sidoo kale waxaad ku dhex qori kartaa header-ka waxaan dhahaynaa oo anchor element loo soo gaabiyo waa inuu ahaado small anchor element loo soo gaabiyo kadib refresh yarna inuu ahaado waxaan qoraynaa home waan isla fiirinaynaa waa kaasa home soo link waa baran doonaa sida loo qaado xariiqaas sida loo waaweynayo sida farta loogu bedelo sida hoover loogu yeelo waxa soo dhan waa baran doonaa insha Allah cashiradeen dhaxda ayaan ku baran doonaa hadda home ayaa abuurnay sidoo kale waxa abuureynaa contact meel naga la soo xiriiro isla meeshii tag kadib waxa dhahdaa anchor element soo qaado kadib qaybtan dhaxda waxa ku qoraysaa website-kaada wixii ka soo muuqan lahay qaybtan home-kan waa website-kan meesha uu muuqan lahay hala intaan uu yahay anchor element hijrafkan waa attribute caawiya noo sheegay waxayna qaban doono kadib waxayna dhahaynaa contact qofka meesha naga soo xiriiri lahay waa inuu sameeynaa soo link sidoo kale waxaan sameynaynaa about us qofka sidoo kale meesha naga soo xiriiri about us waxaan ugu saabsan anaga waxaan dhahaynaa about us waa save gareynaa kadib waxaan isla soo fiirinaynaa result-gii waa kana sida ujeedidba home ayaan haysanaa oo link iyo contact hadda refresh waa marka kali ku dhaho wax bas bedelayso waa baran doonaa insha Allah kali marka lagu dhaho soo noo geeyo meel cusub ay qoraal u soo daadayo contact qofka meesha noo soo xiriir lahay hadda refresh waa iyadana waa baran doonaa about ka refresh waa kali refresh waxa la marka kali lagu dhaho wax bas bedelayo laakiin waxa baran doonaa cashir soo socda insha Allah kali marka lagu dhaho inuu geeyo contact meel naga soo xiriir karo dadka dhan ku qoray xogta ay ku qoran tahay macluumaadkan sidoo kale hore waxaan u soo baranay sida loo kala sikiyo hadda home-kan iyo contact-kan waa isku dhagan yihiin home-kan inta noo yaala contact-kan yarna space inta uu kala sikino hore waxaan u soo baranay haddaan nala socotay cashiradayna hore ku soo baranay break line oo ahay br inta ayaan waxa geli doonaa br taas waxay u taagan tahay break line waan save gareynaynaa kadib waan soo fiirinaynaa result-ga refresh ayaan waa kaasa break line wuxuu suurto gelinayaa inuu sadar cusub iga bilaabo laakiin ma rabi inuu sadar cusub iga bilaabo waxaan rabaa inuu ii kala sikiyo kaliya oo hal sadar isku qoro koodka ayaan tagaynaa br tayna iska diraynaa waxaan dhahaynaa n ayaa dooranaynaa kadib non space break
intaas ayaa qoraysaa. intaan waxaa laga soo gaabiyey non break space iyagu samey sadarkana hay kala jibin waa Soomaali ahaan. intaan waxay noo suurtagelinaysaa inay kala sikato keliya refresh markaa dhahno waa kaas waa kala sikayay laakiin sadar cusub inga bilaawin ee halkii line ayuu sii daba qabay. sidoo kale haddii u baahannahay inaan xoogaa mar kala sikinina intii camal qoraynaa asiga ayaan ku celinaynaa. kaasa resultiga laba mar ayuu kala sikay. si aan u kala sikino contactgan ee aboutkan intii sameeyno kale ayaan sameynaynaa. koodkan ayaan tagaynaa editorka. intaan ayaa koobi garaysanaa ama gacanta ay ku qori kartaa. waxaa kuu fudud inta waqtiga lama lahay inaad koobi dhahdid kadib control v dhahdid. waan save garaynaa save ayaan dhahaynaa kadib chrome ayaan tagaynaa refresh ayaan dhahaynaa waa kaasa. haddaad u baahan tahay space badan inta ilaa inta camal waxaad badsanaysaa markasto non break space kan ayaa badsanaysaa inta koobi garaynaysaa kii haynay mar allaala markaa beedidu waa mar allaala markuu sii kala sikaday space wakaas wax badan ayuu sikaday uma baahni marka waxaas oo dhan control z leen iska dhahaynaa z labadaas ayaa naga badan. hadda waxaynu sameynay navigation oo linki ah home iyo contact iyo about. sidoo kaleeto waxaynu isla sameyn doonaa more hyperlink. hadda hal link ee soo gelin linkaas waxaa loo qaybiyaa laba ayaa loo qaybiyaa relative link iyo hyperlink. relative link waa kana absolute linkaas waxaa loo qaybiyaa dhaana absolute link iyo relative link. absolute linkiga waa linki ku geynayo website kaleeto halka relative link uu yahay link ku geynayo website kaada dhexdiisa. waa kana current page web page dhexdiisa ku geynaya. insha Allah iyadana waa arki doonaa sida loo daraasay. hadda waxaynu aragnay oo kaliya relative sida absolute loo sameeyo iyadana waa arki doonaa. absolute code ka ayaan isla tagaynaa. absolute ka inta ayaan ku qoraynaa. waxaan ku qoraynaa about hoostiisa ayaan ku qoraynaa relative waxaan dhahaynaa oo kaliya aan karaan dhahaynaa kadib inta ayaan waxa gelinaynaa http kadib waxaan dhahaynaa linkiga aynu rabno. hadda waxaan dhahaynaa youtube.com. intana waxaan gelin doonaa waxa ka soo muuqan doona markii la galo youtube markii linkan la galo waxa soo muuqan doona website-kana marka la galo. waxaan dhahaynaa aad Soomaali ka dhigaynaa aad waxaan dhahaynaa youtube. hadda waxa noo soo muuqan doona aad youtube nooma soo muuqan doonto youtube.com. youtube.com waa linkigi aynu ku tagi lahayn meesha halka intaan ay tahay waxa noo soo muuqan doona oo kadib kili ku dhihi doona. waan save garaynaynaa kadib waxaynu tagaynaa browserkayna. waa kana waxaa soo baxay aad youtube keliga markuu siino wuxuuna gey doonaa youtube balse hadda internet noomu xirno laakiin hadduu internet kugu xiran yahay keliga markuu tira youtube tasku geynaa. waxay kaa anfacaysaa inaad dadka u dhigtid linki ku saabsan cashirkaada inaad intuu dhigtid kadib keli ku dhahaan website-kaada waxa la ka hadlaysid keli ku dhahaan kadib toos soo daawadaan wixii meesha saarnaa. sidoo kale waxaynu isla daraasay doonaa insha Allah linkigayna si loogu furo. hadda linkigayna waxaa lagu dhex furay website-ka dhexdiisa. sidee ku ogaanayna website-ka dhexdiisa lagu furay keliya markaa dhaho waa kana isla keelaya HTML laakiin waxaan u baahannahay inaan lagu furo new blank meel bannaan in lagu furo. koodka ayaan isla tagaynaa kadib intii hadda camal ay qoraynaa http kadib google aan ka dhiganaa google.com kadib intaas marka dhana waxaan dhigaynaa blank. waxaanu ku qoraynaa youtube-kan hoostiisa linka waxaan dhahaynaa anchor ayaan dooranaynaa
kadib waxaynu dhahaynaa http laba dhibic ayaanu dhahaynaa double slash kadib waxaynu dhahaynaa meeshaas markaaynu doorano halkan waxaynu ka dhigaynaa google ayaa ka dhigaynaa google.com ayaanu ka dhigaynaa intaas markaa dhahno waxaan dhahaynaa targetkayna muxuu yahay targetkayna waa inaan nagu furo linkiga waa inaan nagu furo blank meel cusub ama meel bannaan ah waxaynu tegi doonaa waa save garaynaa kadib waxaynu tegi doonaa chromeka cilad ayaa jirto fadlan cilada jirto waxa waaye maana qorin wixii noo soo muuqan lahay markuu xirmo taagan markuu xirmo waxaa laga rabaa taagan markuu xirmo wixii ku soo muuqan lahaa magaca meesha lagu geli lahaa hadda waxaa dhahaynaa google go to google kadib wadho waxaa noo soo muuqan doona go to google save garaynaa browserka aadaynaa markaa refresh aanu go to google soo bixi doonto waatana go to google marka ku dhufano html-kan beginner lagu furi doono inta wax ku soo bixi doonaa mid cusub blank waa kana go to google target ayaa lahaa blank ama meel cusub inaad ku furitid adoo isticmaalaya target attribute sidoo kaleeto sidee loogu soo darsadaa email waxaynu ku hoos qori doonaa google-ka linki google-ka ayaan ku hoos qori doonaa insha Allah waxaynu dhahaynaa anchor element kadib enter ayaanu dhahaynaa enter markaaynu dhahno waxaynu qoraynaa maadaama mail gmail rabnaa ama email waxaynu dhahaynaa mail to markaa dhahno waa inaan laba dhibic markaa dhahno kadib waa inaad dooranaa gmailkayni kasoo qaad waxaan dhahaynaa xasan at gmail.com kadib intaas markaa qorno waxaa oo website-kaana kasoo muuqan doono qofka hore uu geli doono ayaanu qoraynaa xasan at gmail.com waanu save garaynaynaa waxaynu aadaynaa browserka refresh ayaan dhahaynaa waa kana xasan gmail.com kadib gmail ayuu toos ugu geynayaa si u qurxanaato navigationada aan qorayno iyo ankarada aan qorayno waa inaan kala sikinaa hadda sida ujeediinba ma kala sikisan sida kuwaasoo kaleeto waxaynu tegaynaa intayna waxaa dhahaynaa non speak break intaa lasoo koobi gelisinayna intaas waxay ku suurtagelinaysaa iyadoona kaa kala jiibinin line-ka inay kala sikido kadib waan ku koobi garaynaa control c control v lay dhahaynaa control c u taagan copy control v u taagan paste kadib waan save garaynaynaa markaas hadda waa kala sikadeen kan ayaana ka hilmaamnay control v waan save garaynaynaa sida ujeedinba hadda waa qurxanaya website-kayna wuxuu yeelay navigationo linki ah insha Allah cashirada ku xigo waxaynu ku baran doonaa navigationada hadda kaliya marka lagu dhaho refresh waa in marka kaliya lagu dhaho dhow inay nageeyo meel cusub oo home kan oo kale nageeyo home contact ayaan nageeyo meel naga la soo xiriiri karo about kan waxaan ugu saabsan YouTube kan oo nageey karo YouTube ka caadiga ah internet marka lagu xiriirsado cashirada ku soo xiga insha Allah aynu ku baran doonaa cashirkayna maanta sunu eegyahay waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan fadlan cashiradii ka horreeda soo daawanin cashirada waa tutorial way isku xiran yihiin fadlan cashiradii ka horreeya soo daawo fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe noo saar channelka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh